labada sheekh ee dhalinyarada ee da'da yar ee lagu kala magacaabo Abubakar iyo Umar fadhigoodu yahay wadanka Holland oo muddooyinkii ugu dambeeyay ku sugnaa gudaha wadanka Soomaaliya ayaa maanta waxay soo gaareen magaalada Boorame ee xarunta gobolka Awdal iyadoo muddooyinkii ugu dambeeyayna baraha bulshada si weyn u baahinayay in maalinta Jimcaha oo ay bishu tahay 13 isla markaasina maanta ku beegan ay garoonka kubadda cagta ee magaalada Boorame Xaaji Daahir Stadium ay ku qaban doonaan muxaadaraad u balaaran ayaa markii la gaaray waqtigii loo balansanaa muxaadaraadasi waxa gabi ahaanba garoonka soo buuxdhaafiyay kumanaan shacabka kala duwan ee ku nool gudaha magaalada Boorame halkaas oo garoonku la ciirciirayay dadka kala duwan ee iyagu muxaadaradani ka soo qayb galo iskugu jiray dhalinyaro odayaal hooyooyin iyo caruur intaba markii la gaaray waqtigii muxaadarada loo balansanaa inay gudahaanba ka bilaabanto gudaha garoonka Xaaji Daahir Stadium ee gudaha magaalada Boorame ayaa ay suuragal weyday kadib markii uu garoonku qaadi kari waayay dadkii ka soo qayb galay taasina ay suuragal noqon kari weyday in ay labada sheekh gudaha garoonka soo galaan si ay muxaadaradii loo balansanaa halkaas ay ugu qabtaan waxaana gudahaanba baaqday barnaamijkaasi maanta loo balansanaa inuu ka dhaco garoonka kubadda cagta Xaaji Daahir Stadium ee magaalada Boorame ay martida ku ahaayeen labadaasi sheekh Abubakar iyo Umar Axmed Daacad telefishinka madaxa bannaan ee Ray TV gudaha magaalada Boorame